Sahmiye Foundation ayaa soo gabagabeeyay tartankii xawaaraha akhriska iyo fahamka oo ay ka qayb galeen 10,300 qof waxaana abaalmarino ku guuleystay 9 tartame oo ka ugu horeeyay la siiyay $5,000 halka kaalinta labaad uu qaatay $2,000 kaalinta saddexaad $1,500 iyadoo kaalinta afraadna la siiyay $1,000 waxa iyaguna min $1,000 helay 4 tartame oo kaalinta koowaad u galay magaalooyinkooda. waxaan jecelahay inaan u yeedho labada inan ee qaatay labada lambar ee kow oo iyagu mar miiska wada iman doona. bismillaah 1 2 3 waad bilaaban kartaan. waa hagaag waxaan filayaa inaad wada arkayseen natiijada xawaarahooda iyo akhriskoodaba runtii natiijooyinka ay ku soo kala gudbeen ilaa inta wareega ku jireen iminka bimatalan oo kale haddaynu eegno isbedbeddel badan baa u dhexeeya aan sacab ku saboodsiino dhammadoodaba natiijada fiican baynu eegi doonaa. waxaan u yeedhi doonaa labada tartamee kale cabdiraxmaan bare iyo cabdiraxmaan axmed. waad bilaaban kartaan insha allah. hal daqiiqo ayaa kuu dhiman 10. waxaan rajaynayaa inaynu shaqada yarayno. waxay idiin muuqato aad arkaysaan haddaan ku horeeyo cabdiraxmaan axmed bare oo gabiilaya in heerka fahankiisu marxalado fara badan buu soo maray laakiin rikoodhkii ugu dambeeyey halkan uu ku yimaada waxa waa 64% markii hore caawana waa 31 sida idiin muuqata. xawaarihiisu markii hore akhriska sheekadii ku horeysay waxa waa 569 caawana waa 362. madaxa fursadaha ama youtuber markaasi cabdiraxmaan axmed maxamuud rikoodhkii ka horeeyey ee halkan uu ku yimi 50% buu ahaa. xalay hal buu ku baxsaday fahanka inuu gruubka kaga hadho hal buu xalay kusoo badbaaday laakiin caawa dadaal dheer buu sameeyo isaga ugu sarreeya intaynu ilaamka arkayno 650 weeye heerkiisa fahanka. halka akhriskiisu xalay uu ahaa 430 xalay akhriskaa dheerinaya laakiin fahan ku sigtay caawa wuxuu xaqiijiyey inuu yahay gruubka kooxaha tartamaya ninka u sarreeya kayse aadan ciidle iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud oo labaduba hargeysa soo dhowaada. kayse aadan ciidle waxaad ma hawl yarayn mar haddaad intaasoo marxaladoodba ka soo gudubtay waxaad u tartamayseen in waa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee labadiinuba kolley natiijadana dee halkaasaa laga sheegi doonaa. aad baa u mahadsantihiin labadiinuba horta 1 iyo 2 baad kala tihiin. Samdus waxay ahayd tartamihii ugu da'da yaraa 32kii tartame ee ka soo qayb galay tartankan ee finalka soo gaadhay weliba taa waxay ku darsatay Sundus heerka fahankeedu inuu ahaa 100%. waxaase hadda ka bilaabi doonaa tartamayaashii magaalooyinka ugu sarreeyey. aan ugu horrayn u yeedho yuusuf iidle yuusuf oo ah tartamii ku guulaystay magaalada laascaanood. waxa uu helay lacag cadadkeedu tahay $1,000 oo abaalmarin ah. qoray buuri maayo tareex maalmaami karo habka dhaqan ka iyo hidaheena iyo horwe aan ku xajinno tartamaha gobolkii awowiyaasha waa shaafici maxamed cali oo ka tartamayay magaalada Cergaabo. wuxuu ku guulaystay $1,000 oo lacaga. Cergaabo dhowr goor cirkii gala baxsho geeduhu baxeen waa goob janneed. Cergaabo iyo tartamaha saddexaad waa tartamaan ka socda magaalada caashiqa magaciisana cilmi maxamed ibraahim baa la yiraahdaa. wuxuu ku guulaystay $1,000 oo lacaga. mudana meeshay ku taala muhiimad weyna muftaaxi
dalka macbuudti siiyey berbera mudana meeshay ku taallaa kaalinta koowaad buu magaalada boorama u galay waa khaalid cabdalla saalax magaaladii aqoonta miyaasow iyo sintii boorame ubaxya ku salaamayaan sido hadda sooliyo sanaag tagayo dayacsar togdheer subaxo moluhu igu simaysa badii berbera way harkayso siraada waan sugaye miyaasow iyo sintii boorame ubaxya ku salaamayaan sido waxaan u yeedhi doonaa afartii tartame ee caawa halkan ku kala baxay ku kala guulaystay kaalinta afraad waxaa ku guulaystay cabdirashiid maxamuud cabdi oo ka socda magaalada burco wuxuu ku guulaystay lacag cadadkeedu yahay $1,000 lagu taftaafi burca waxay ku taallaa xididada tiliicin tabinaaya dhiigi dayaxyaaba qaado tobaniyaasha joogiyo xidiga tartamaye isku taxay dushiisa tahaniiga hirayo dusma faraashadeediyo tarantarinta laafya aan u yeedho tartamaha kaalinta saddexaad ku guulaystay cabdiraxmaan axmed barre magaalada gabiley waxa uu ku guulaystay lacag cadadkeedu tahay $1,500 haldoorkiyo qaybta gabilayba tahay iyo gobolkii cagaarna waxaan u yeedhi doonaa guulaystihii kaalinta labaad galay waa isla magaalada hargeysa waa kayse aadan ciidde wuxuu ku guulaystay $2,000 digoona carfiga laydhaada wacan carfiga laydhaada wacan mar uu ku caweeya rabay maxaan caradii goobtiyo waa tahay waxaynu u yeedhi doonaa youtuberkii caanbaxay heesaaga caanbaxay rugsi lagu habeeye fanku heer ku gaadha